ibliis waa hoggaanka noolaha dahsoon ee jinka ee uu ilaahay abuuray aadamaha hortood waxaana uu ka abuuray holaca daaftiisa way cunaan cabbaan oo tarmaan sida aadamaha gaalo iyo kuwo iimaan lehna way leeyihiin waxaa jinka hortii uu ilaahay abuuray laba noole oo xin iyo bin la kala odhan jiray kadib way kibreen oo fasahaadeen ilaahay ayaana jinka ku salliday markaasay jinku gumaadeen oo dhulka ka tirtireen kadibna jinka ayaa arladii ku kaliyeystay oo degay jinkii markii ay muddo arladii ku dhaqmayeen ayay iyaguna kibreen oo fasahaadeen kadib ilaahay waxa uu u soo diray malaa'igta oo laysay firxadkii ka soo hadhayna jasiiradaha badaha iyo meelaha daasoon ee caalamka ayay u firdhadeen malaa'igtiina waxa ay dhulka ka qaadeen cunug yar oo daragada saaran oo jinkii ka mid ah waxayna geeyeen samada waxayna ugu yeedhi jireen casaaziil casaaziil waxa uu noqday shakhsiyad cibaado iyo alle caabud ku suntan casaaziil waxa uu noqday shakhsiyad cibaado iyo alle caabud ku suntan iimaan badnaantiisiina waxa ay gaadhay in laga dhigo maamulaha samadan adduunyada markii uu ilaahay damcay inuu abuuro aadan si uu dhulka u dego warasadiisuna uga dambayso ee uu dhoobadiisii dhammaystiray ayuu casaasiil oo ahaa hoggaamiyihii samadu ku dul wareegay qalfoofkii aadan markii uu dhugtay inuu yahay noole uurku jir iyo hul hoose oo isu daloolo lehna waxa uu gartay inuu yahay noole aan isaga hoos imanayn ee ka madax bannaan bahalna ceedhin ma daayo nina caadadiisa ma baajee xiqdi iyo xaasidnimo ayaa kulaalay oo madax maray markaasuu ku yidhi haddii amarkaaga lay dhiibo waan ku hoojin haddii amarkayga laguu dhiibana waan ku caasii kolkii uu ilaahay ku afuufay naftii aadan ee uu malaa'igtiina amray inay u sujuuddo ayuu casaaziil xaasiday ballankiisiina wuu ka dhabeeyey oo inuu sujuudo wuu ka santaagay sujuuddiina wuu iska soo taagay isagoo ku andacoonaya qaala ana khayrun minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min diin waxa uu ku yidhi casaasiil ilaahay aniga ayaa ka wanaagsan aadan oo dab ayaad iga abuurtay isagana dhoobo ayaad ka abuurtay amarkii ilaahay garafka ayuu ku dhuftay isagana ilaahay ayaa naxariistiisii ka dheereeyey xilkii uu ku gaadhay cibaadadiisana uu ka xayuubiyey magaciisii casaasiilna waa laga beddelay oo waxa loo bixiyey ibliis kadibna waxa uu ku noqday asalkiisii ahaa cadaabka oo cadaab iyo naar kulul oo uu ku waarayo ayaa loo ballan qaaday waa laga soo saaray jannadii iyo cirkii uu ka shaqaynayeyba in uu degana waa laga xarimay oo waa laga soo caydhiyey isaga oo yasan oo dullaysan oo cadaab loo ballan qaaday isaga iyo ciddii raacday ee jin iyo insi ahba intaas kadib waxa uu guntiga dhiisha isagaga dhigay sidii uu u lumin lahaa aadan iyo awlaaddiisa dhan kastana uu uga soo weeri lahaa ee uga soo weerari lahaa ibliis ilaahay ha nacdalo wuu nool yahay waxuuna sugayaa waqti qiyaamaha ku eg waxa uu carshigiisa dhigtay badda halkaas ayuu kolba ka soo diraa guluf guutooyin iyo horimo ah oo aadamaha dhibaabo iyo qalalaase ka dhexaloosa ruuxa ilaahay caayaa ibliis ayuu ammaanay ka ilaahay ka cadhaysiyaana ibliis ayuu raali geliyey allaha nacdalo magacan ibliis mufasiriinta badankoodu waxay isku raaceen inay tahay qofka naxariista ilaahay ka quusta iyaga oo u adeegsanaya aayadda fa idaa hum mublisuun ibliis markii uu arkay inay xaajo ka dhabaaqday meel uu ka soo laabtaana aanay jirin ayuu taag iyo tamar iyo tukur wixii uu hayeyba isugu geeyey sidii uu aadamaha u lumin lahaa ilaahay hortiisana ballanqaadyo badan ayuu ka sameeyey ballanqaadyadaasna insha allah xalqadda xigta ayaynu kusoo qaadan doonaa